war degdeg ah. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo goordhow ka dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho. qaraxa oo jugtiisa laga maqlay xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ka dhacay agagaarka isgooska Balaaksiya ee degmada Holwadaag. wararka hordhaca ah ee ka soo baxaya qaraxa waxay sheegayaan in qaraxa uu ahaa ismiidaamin, waxaa meesha uu ka dhacay ka agdhowaa fariisin ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. xaaladda halka uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan ah mid kacsan, waxaana goobta uu qaraxa ka dhacay gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo xiray aaga ay wax ka dhaceen, waxaana halkaasi ciidamadu ay ka ridayaan rasaas xoogan. sidoo kale waxaa haatan socda gurmad loo fidinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi. sida aan ku helnay xogta qaraxa, haweeney ayaa isku qarxisay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya oo aan ilaa iyo hadda magaciisa helin. warar kale waxay sheegayaan in qofka isqarxiyay uu nin yahay. qasaaro xoogan ayaa jira, wixii warar degdeg ah mar walba halkan kala socda. dhinaca kale wararka degdega ah ee na soo gaaraya waxaa ka mid ah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday dable Maxamed Xuseen Cilmi oo loo haysto kufsi uu u geystay Farxiyo Cabdi Shakuur Bootaan oo 4 sano jir ah 14 May ee sanadkan. kufsigaasi oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir sida ay fadhiga maxkamadda ka hor sheegeen xafiiska xirlaalinta ciidamada qalabka sida. Maxamed Xuseen Cilmi ayaa maxkamadda ciidamada mudeysay in la dhageysto dacwada ka dhanka ah bilowgii bishii September, waxaana dhageysiga kama dambaysta ah ee maxkamadda la soo gabagabeeyay 24 bishan. intii ay socotay maxkamadeynta Maxamed Xuseen Cilmi ayaa la dhageystay baarihii kiiskan, sidoo kalena maxkamadda ayaa la wadaagay warqadda cadeynta saameynta dhibanaha gaaray gabadha yar. dable Maxamed Xuseen ayaa qirtay kiiskan, waxaana qareenada u doodayay eedeysanaha ay ku andacoodeen in aan loo soo qaban qiraalka eedeysanaha maxkamaddu fursad kale la siiyo. gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa la tashi iyo fadhiyada maxkamadeed kadib ku riday xukun dil ah sida uu la wadaagay dhinacyada dacwadaha maanta oo Khamiis ah. Maxamed Xuseen Cilmi ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan sida uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute.